xeradan ceel jaalle ee ku taalla magaalada beledweyne magaalo madaxda gobolka hiiraan waxa ay ka mid tahay 4 xero oo ciidamada nabad ilaalinta ee ka socda dalka jamhuuriyadda Djibouti ee ka tirsan kuwa midowga Afrika AMISOM ay ku leeyihiin magaalada beledweyne degmooyinka kale ay ka shaqeeyaan ciidamada Djibouti ee gobolkan hiiraan ayaa waxay kala leeyihiin Jalalaqsi iyo Buulaburde ciidamada Djibouti subax walba xilligan oo kale marka 6 barka ay tahay ayaa sida la ii sheegay ay bilaabaan hawlahooda waxaana ay ka shaqeeyaan dhinaca nabad ilaalinta waxaana ay sugaan oo kale ammaanka shaqaalaha samafalka ee ka socda jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa iyo hay'adaha kale ee gargaarka haddaba hawlaha ay maalin walba qabtaan ciidamada ka socda dalka jamhuuriyadda Djibouti waxay iga warramayaa Korneyl Cabdiraxmaan Riyaale oo isagu haatana taliyaha ciidamada Djibouti ee ku sugan magaalada beledweyne Riyaale waxaan ahay batalyanka Hillside ninka xukuma wuxuu joogaa batalyankan wuxuu joogaa beledweyne oo ceel jaalle ah Araboorka oo Raxsan Lamagalaay iyo Buulaburde intaasuu ka kooban yahay batalyanku intuu joogo shaqada ay qabtaan waxa weeye horta waxa weeye nabadaynta wuxuu muhiimka ugu weyn u socdaan waxa weeye nabadaynta ummadda Soomaaliyeed si ay ugu soo noqon lahayd adduunyada intii ay ka maqnayd horta intii adduunyada si ay uga mid noqon lahayd markaas waxa weeye subax kasta halkan waxa soo gala xeradan ceel jaalladan ka warrabo ilaa 253 oo shaqaale ah oo societeyo xeradan ka dhex shaqeeya u shaqeeya taasna waxaad ku arki doontiin hadhow markay soo galayaan irida ay ka soo galeen waad arki doontaan subaxdii kasi ciidankani horta inuu jooga maaha meel wuxuu u baxaa baatruwiyo waayo cadowga haddaad fadhido adigu ku iman siduna kugu iman waa inaad subaxii kasi baxdid ilaa 10 kilometer 15 kilometer ilaa ahaan dhulka iska soo indhaydhaysid saasay u baxaan kolka waxa weeye waxaana dhex degan halkana qolada UN-tana dhex degan oo nu sameeyno escort markay magaalada tagayaan magaalada iyada laftigeega marmar baan sameeynaa baatruwi dhexdeeda iyo fuwi aan ku sameeyno wixii qoryo aan xeer u hayn ee sita si aan u qabano marka shaqooyin badan oo ankaas ay qabtaan batalyanka kasoko haddaba hawlaha nabad ilaalinta iyo samafalka ee ciidamada Djibouti ay ka sameeyaan gobolkan hiiraan waxa kale oo jirta fursado fara badan oo xagga shaqooyinka oo ay u abuureen dadka deegaankan ku nool oo subax walba qaar fara badan oo kamid ay u soo shaqo tagaan xeradan iyo xiriyaha kale ciidamada Djibouti ay ku leeyihiin magaalada beledweyne si xoog leh ayaa dadka halkan loogu baarayaa waxaana weeye sidaan horeba u sheegay tallaabo lagaga taxadarayo inaan wax dhibaato oo xagga amnigii aanu ku imanin ciidamada xeradan ku jira iyo shaqaalaha hay'adaha jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa ee iyaguna halkan degan idriso marka dadka xagga hore lagu soo baaro mar labaad halkan ay ku baadhaan ma baaritaan kala markaa u harsan halka ugu horeeya degmoodka ugu horeeya ciidamada ka tirsan baa jooga waa la soo baaraa dabadeedna halkan baan ku baadhnaa oon gacanta ula tagnaa mar saddexaadka halkaa baan isku urursadaan dabadeed liin baan gelinaa ay dhikaartigooga qaataan haddii dhikaartiga qofka aan lahayn dib waan qabanaa waan reebnaa oo shaqadii kama qayb gali karayo saan dhikaart meesha waa ka mamnuuc markaan iminka hawshaad arkaysaan marka la soo ururiyo shirkad kasta meesheeda joogsan ee dhikaartigooga qaybsanayaan fayl ba u galayaan waan eegaynaa dhikaartigoogii wajigiisii iyo dhikaartan isku eegaynaa dabadeed waan u sii deeynaa portega aad iyo aad baad u mahadsantay marka baaritaanadu ay dhamaadaan deedna waraaqahoodii aqoonsiga ay qaataan ayaa deedna loo sii deynaya xerada deedna halkaasay shaqooyinkooda ka bilaabanayaan waxaa la hubsanayaa in qofka wejigiisa iyo sawirka ku dhegsan kaadhka aqoonsigu ay isleeyihiin wixii gawaariya xerada gelaysa sidana loo baaraa si ammaanka loo sugo gaariga daaqadaha dhan baa loo furayaa deedna kawarka hore ayaa laga qaadayaa isagana injiinka deedna markaas ayga lagu sii deynayaa gaariga si uu baaro xitaa gaariga gudihiisu aygu uu baarayaa
ama urursanayaa. aydan waxay ka mid yihiin kuwa lagu tababaray inay uriyaan waxyaabaha qarxa iyo baaruudda iyo waxyaabaha la midka markaa saasaa gaadhigoo dhan uu aygu marayaa gudayo dabadba markaasaa gaadhiga la sii daynayaa si uu xerada u galo. si haddaba aa u aragtaan sida aydani ay ammaanka uga shaqeeyaan, markii hore gaadhiga uu baadhay waxyaabaha qarxa kumay jirin, deedna aygii uu ka soo noqday. imika qolyahan qaabilsan shaqooyinka aydan ayaga gaadhiga waxay dhex dhigayaan waxyaabaha qarxa si markaas bal haddaynu eegno sida aygu u helo. aygii baa mar labaad lagu soo daayey gaadhiga iyadoo marka lagu qariyey gaadhiga waxyaabaha qarxa. bal hadda waxaynu eegaynaa sida ayga ay ugu suurto gasho in markan uu helo wixii gaadhiga lagu qariyey ee ahaa waxyaabaha qarxa. aygii weli baaritaankiibuu ku jiraa. wakaa marka uu fadhiisto ayaa waxay ka dhigan tahay aygu inuu helay waxyaabaha qarxa. markaa iminkaa la soo saaraya haddaba wixii meesha lagu qariyey ee ayguna uu helay. xaaladda ammaanka ee ka jirta haatan magaalada beledweyne ayaa waxay aada uga duwan tahay sidii duruufuhu ay ahaayeen sanadkii 2011 markii ciidamada nabad ilaalinta ee jamhuuriyadda Jabuuti ay soo gaareen magaalada beledweyne iyo guud ahaanba gobolka Hiiraan. arrimahaasna waxaa iga warramaya Korneyl Cismaan Dubbad oo isagu waqtigaasi hogaaminayay ciidankii ugu horreeyay ee ka socday jamhuuriyadda Jabuuti ee soo gaaray magaalada beledweyne. 6 bilooda 2011 marka xaqiiqatan waxa ilaahay mahadiya in maanta iyo waqtigii aan imanay uu farqi weyn u dhaxeeyo. waxa weeye waana darki doontaa markaad magaalada u dhaadhacdid magaaladii oo waxa weeye amniya, magaaladii oo nololi ay ka muuqato, ganacsi jiro, adeeg uu jiro. waxa weeye aad iyo aad baad yani qofkii u soo joogay waqtiga aan imanay oo magaaladani xaalad adag ku jirtay oo dagaal oo amni darro oo dil ah iyo maanta farqiga u dhaxeeya. marka runtii ciidamada Jabuuti wax badan bay qabteen baan oran karaa. waxaana tilmaami doona ama ku sheegi doona dadweynaha reer Hiiraan wixii ciidamada Jabuuti ay u qabteen ay u tareen iyagana ku fiican tahay inay sheegaan. laakiin anagu de waxaan idhahnaa laa shukra cala alwaajib. ciidamada Jabuuti waxaan idhahnaa waxay qabteen waa waajibkoogii walaalnimo. waxayna la howlgalaan sidaad arki doontidba ciidamada qaranka Soomaaliyeed oo iyagu ay lahaayeen sababtii iyo aasaaskii ciidankaasi. iyagu ay aasaaseen, iyagu ay tababareen, qalabeeyeen, marxalado badanna ay la soo mareen, haddana ay wada howlgalaan. oo waxaad arki doontaa xerooyinka inay wada degan yihiin, inay isku gaadiid yihiin, inay yani wada shaqayn taamih ay ka dhaxayso ayaad arki doontaa insha allah. hurda ma sirto ma soo hargalaan, arad ma qabto hadafkoodiyo hawsha loo diro ma habaabaan.
xerada halka ka muuqata waxa weeye xerada ugu shishaysa ee magaalada duleedkeeda ay imika degan yihiin ciidamada ka socda Jamhuuriyadda Djibouti waxaan filayaa in halka hoose ay idinka muuqato magaaladii Beledweyne xeradan maxaa la yiraahdaa taliye xeradan waxa weeyaan qayb kamida ilaalada aeroboorka waxa weeyaan darifka ugu midigaysan magac male waxa weeyaan aeroboorka ciidankan ugu tala galnay baan qayb u dejinay qaybtani waa qaybta ugu soo shishaysa ugu soo xigta daranka darifka hadaad xerada dhex degdidna waxaad arkaysaa aagaas aeroboorka hortiisa oo dhan si fiican ayaad ula soconaysaa wixii dhaqdhaqaaq ka jira markaas xeradan aad bay ugu muhiim tahay aeroboorka security-giisa dhulkan buuraha ee ku gadaaman magaalada Beledweyne waxa kale oo uu leeyahay muhiimad aad iyo aad u weyn oo dhinaca ammaanka oo guud ahaanba magaalada uu leeyahay iyo gaar ahaan sida Colonel Cabdiraxmaan uu sheegay gagida diyaaradaha sida ammaankeeda loo sugi lahaa ammaanka guud ee magaalada muhiimad intee lag buu leeyahay Colonel Cismaanow muhiimad weyn buu u leeyahay aeroboorku khaasatan waxay aeroboorka ilaaladiisu waxa weeye de waxa ku xidhan imaatinka diyaaradaha haday yihiin kuwa diyaaradaha private-ka madaniga iyo kuwa AMISOM ama UN-kaba marka de aeroboorku in la ilaaliyo waa muhiim xeradana qayb libax bay ka tahay annagu waagi aan imanay ciidamadu halkan ma joogeen laakiin xerooyin kale oo hore ayaa jiray oo de hadda maadaama amnigii la sugay dib looga soo ruqaansaday laakiin habeenkii de la baxo oo waxa weeyaan aagag la tago si moogsoon tahay oo ciidamadu habeenkii ay ka howlgalaan iyo waqtiyalka qaarkoodba marka xeradani meelaha waagii la degay dagaaladu aad uga dhici jireen bay ahayd Allahu naxariisto wiilal baa ku dhintay xeradan iyagoo oo ciidanka Djibouti ka tirsanaa ayaa ku geeriyooday oo ku shahiiday dabcan waxay ahaayeen meelaha aeroboorka aad looga difaaco iyaguna waxay carqaladeynayeen aeroboorka iyo waxa weeyaan diyaaradaha marka sida daraadeed xeradani waa xero aad u muhiima sida uu Cabdiraxmaan sheegay waxa weeye waxay sugaan ammaanka aeroboorka iyo isu socodka gaadiidka diyaaradaha Colonel Cabdiraxmaan dhulkan buuraha ee magaalada u dhow qayb weyn ba ka qaataan in ciidamadu joogaan Soomaha sidii magaalada ammaankeeda loo sugi lahaa waxa weeye horta meel saro oo dhan waxa weeye waxa uu muhiim u tahay security-ga si aad u ilaalin lahayd waayo haddii laga sareeyo dawaa laga adagay kolka adiga qasab kugu tahay meel saro oo dhan oo magaalada kulaalaysa ama si fiican u arkaysa inaad adigu joogtid oo sugtid amnigeega inkastoo uu sugan yahay ammaanka guud ee magaalada Beledweyne iyo nawaaxigeeduba iyo goobaha kale gobolkan Hiiraan ee ciidamada Djibouti ay ka howlgalaan haddana falal amni darro oo al-shabaab loo tiriyaa mararka qaarkood magaaladana ka dhaca meelo kalena ka jira iyaga maleeshiyaadkooda xaggee joogaan imika ogaanta wallaahi hadda in noo dhow 60 kilometer meel lagu qiyaaso ayaa imika lagu sheegaa mana badno waxa weeye gobolka Hiiraan oo dhan ayaa lagu tilmaamay in 2000 ilaa 1500 joogto markay de meel inay weeraraan rabaan unbay soo urursaan inta kale waxay u socdaan qayb yar oo 10 qof kolka anagu dhawaan waxaan tagnay ilaa Dhuusa Mareeb dariiqaan marnay wax dhibaatana kala ma kulmin si socod iyo soo socodba marka waxay ku tusaysaa inuu de hadeed awoodiisii sii dhaadhacday al-shabaab maalmahan imanoo dhan waxaan u bixi jirnay kolba aag inta aan baxnoo dhan wax aan la kulanno waa al-shabaab leeyma arkin kolka waxaan u malaynayaa inayna dhulkan ka dhaweyn sidaan nimankan warka haynana ilaa iyo meelaha ugu dhow waa meel 60 kilometer noo jirta wax yaroo de habeen soo galo qof waa la heli karaa laakiin ciidan cadow oo weyn ma jiro Colonel Cismaan Dubad waqtiga aad timaadeen xaaladdu aad bay uga duwaneed oo dagaalo safayna ayaa idin dhex mari jiray Soomaha al-shabaab aad iyo aad waxa weeye nimankaasi khaasatan waqtigaan imanay waxay damci jireen in ay
ciidamada Jabuuti ay dharbaaxa gaadhsiiyaan ama dhibaato ay u geystaan inay qabsadaan meelaha xirooyinka ama xarumahooga ay ka mid tahay xeradani waxay isku dayi jireen xeradan khaasatan inay qabsadaan marka laakiin uma suurtagelin alxamdulilah weli lama hayo xero ciidamo Jabuuti ay degan yihiin oo nimankaasi ay qabsadeen lama hayo ciidan reer Jabuuti ah oo gacanta ay ku dhigeen walilaahi alxamd lama helin dagaal ay wada galeen ciidamada reer Jabuuti iyo nimankaasi ay kaga guuleysteen ma dhicin marka wax ilaahay loogu mahadiyo dagaallo sida aad sheegtay waxa dhici jiray joogto ah oo marka qaarkood foolka foola khaasatan magaalada Beledweyne waa tagi doontaa laakiin qaybta oraxsinka waxa weeye yaa dagaalku isaga qudadiisu u badnaa oo isku day jireen inay xirooyinkaas qabsadaan laakiin uma ayna suurtagelin runtii waa tahay imikana waxaanu tegi doonaa gegida diyaaradaha ee magaalada Beledweyne oo iyaduna muhiimad aad iyo aad u weyn u leh magaaladan iyo guud ahaanba gobolka Hiiraan waxaanay ka mid tahay meelaha ugu muhiimsan sida taliyayaasha ciidamadu ay sheegeen ay ammaankeeda sugaan ciidamada Jamhuuriyadda Jabuuti marka laga soo galo garoonka diyaaradaha ee magaalada Beledweyne waxaanay halkan tusaale u tahay sida ay wada shaqeeyaan bilayska Soomaalida iyo ciidamada Jamhuuriyadda Jabuuti marka hore dadka rakaabka iyo cid kasta oo soo galaysa garoonka diyaaradaha waxa soo baara bilayska Soomaalida dabadeedna marka dambe ayaa haddana ciidamada Jabuuti ay baaraan si ammaanka loo sugo haye nabad soo ma hawlaal soo loo fiicna khayr weeye aad baa loo wanaagsan yahay ilaa imse qof baa maalinteedii soo maraa wallaahi diyaaradaha hadba diyaaradahay ku xiran tahay waxaan ka shaqaynaa qolada ajansiga oo diyaaradaha mar waxay noqdaan 3 diyaaradood mar 4 ay noqdaan mar waxay noqdaan 3 marna 2 ay noqdaan marna 1 marka maalin walba waxay ku xiran tahay inta qof idin soo maraysaa inta diyaaradood ee jirta sidaas weeye hadda maanta oo kale waxaan baaraynaa ilaa 25 qof oo kale oo waa iska khamiistoo kale diyaaradaha way yaryihiin waxay ugu badan tahay waa axadda asniinta arbacada sidii aynu ku soo aragnay xeradii hore marka raggu ay gelayaan shaqaalaha rayidka xerada waxa baadha ciidamada Jamhuuriyadda Jabuuti oo si xoog loo baadha oo dhowr meelood ku baadha sidoo kale wixii dumara shaqaale ah ee xarunta gelaya ama haweenka rakaabka ee iyaguna garoonka diyaaradaha ka dhoofaya sida mar dhow aynu arki doonno waxa iyagana baadha gabdhaha ka tirsan ciidamada Jabuuti marka waxaanu tagi doonaa albaabka kale ee ciidanka Jabuuti ay ku shaqeeyaan si aynu eegno bal hadda dumarkuna sida dumarka laftooda ay u baadhaan marka hawlaha dhinaca ammaanka ee garoonka diyaaradaha waxa si buuxda gacanta uga haya oo u maamula ciidamada ka socda Jamhuuriyadda Jabuuti qof kasta oo yimaada ama soo booqda magaalada Beledweyne waxa khasab ku ah inuu soo arko mid ka mid ah astaamaha ugu caansan ee magaaladan ay leedahay waa buundadan oo la yiraahdo buundada liiqliiqato buundadani waxay caan ku tahay heesta uu sameeyay abwaanka weyn ee Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi ee Beledweyne ee codka wanaagsanna ku qaado fanaanka caanka Xasan Aadan Samatar
haddaad in badan maqashay buundada cayaarta ee beled weyn ku taallo waa buundadan weeye deedna buundada lafteeda ayaynu ka tallaabaynaa abwaanku halku marayey markii heestaasi ay ku dhalatay buundadanay ahayd buundadanina waxay ka tallowdaa webiga Shabeelle oo iminka sidaa arkaysaan aad iyo aad u biyo yareeyey dadka qaarkoodna ay kuba tilmaamayaan inuu guray haddana xoogaa biyaaba weli socda walaal magacaago saddexan igu bilow cumar aadan ibraahim guddoomiye hore gobolka hiiraan cumar baadiyo ku magac dheereeya cumarow buundadani muhiimad intee lag bay magaalada u leedahay buundadan horta waxaa la dhisay 73 buundada hore oo mataqaanaa abwaanku ugu magac daray beriyeed oo ku tusi doonaa waxay ahayd buunda liiqatay ahayd waxay ahayd ayadan mataqaanaa dadka bisa loogu talagalay gaadiid ma mari jirin marka buundada labada qofood xataa isku garabnaabi jireen waxa kala istaagi jireen laakiin halkan bay ahayd waa dhangaan ay naga jirta hadda oo ku tusi doona marka buundada waxay taariikh u leedahay heesta markay abwaanka iyo gabadha markay iska hor yimideen ay dhan wal markay isku jireen ama u banay halkaas ay meesha ku kulmeen abwaanka dhankaas oo la baxay gabadha waxay ku bilaysay xaafadda mataqaanaa ay sheeg hadda aan ku tusi doono habeenkii dambe oo ciyaarta baxay soo taliye baaso ba'aano warmoogo balantii ma baajin warku leeyahay raawi taydii ma beeran marka waa halkii marka waa buundo aad iyo aad u taariikhi ah laakiin sida uu inoo sheegayey Cumar Baadiyow taaladani ma aha tii abwaanka laftiisa uu maray laakiin waa halkii lafteedii marka mar kastoo aad maqasho heesta beled weyn waad qiyaas karaysaa buundadaasi halkay ku taallo intaasaa ka sii hadhay buundadii hore liiqliqata loo yaqaanay ka tallaabi jirtay webiga oo ahaydna tii abwaanka hadraawi lafahantiisu uu wakhtigaa maray ee gabadha uu kula kulmay marka buundadaa hore iyo tan iminka liiqliqato isku meel bay ku yaallaan laakiin taa hore sida laynoo sheegay gaadiidku ma mari jirin halkan iminkaanu joognaa waxa weeye iyaduna meel kaloo ka mid ah meelaha ugu caansan magaalada beledweyne waa argada meesha loo yaqaano Cumar goorma la dhisay halkan argada waxa la dhisay 1960kii waxa u jeedaa xornimada Soomaaliya ee ka mid tahay Talyaaniga dhisay ka bacdi qaraxa ka dhacay baasha dhulka timid maamulka darsaan uu hagaajiyay gobolka goorma qaraxu halka ka dhacay markaa wuxuu ka dhacay 2013 ka dhacay marka taaladan gebigeeduba dhulkay gashay marka dib aan u dhisnay waa aasnay ereyada Talyaaniga xataa aan ku celinay sida mataqaanaa ay u noqoto museum ama xasuus marka sideedii aan ugu celinay waa marka waa meel aad u yaqaanaan dadkii reer beledweyne ahaan jiray ama magaalada soo booqo aad iyo aad beledweyne dadkii waxaan taqaanaa waa kala beerka magaalada dhex bartanka waaye garoonka basketka halkaan oo ka ahay halkaan lama galaayo waa inta irdaami waa inta buundweyn waaye marka kala bartamihii magaalada ku dhex taala waxaan u malaynayaa marka dambe argada aad maqasho sidii buundadii liiqliqato kale inaad garanayso markaa halka ay magaalada kaga taallo goobaha kale taariikhiga ee ku yaalla magaaladan beledweyne waxaa ka mid ah labada rukun ee wadadan ku yaalla Cumar meesha waxa la sheegay inay aad iyo aad taariikh u leedahay maxay yihiin rukumadani bismillaah cabdisalaam wadanka warrab labada rukun waxa waaye irid aamin wadaad maqasho waa tan horta irid aamin maxaa loogu bixiyay markaa irid aamin waxa loogu bixiyay halka irida magaalada laga soo gali jiray waagi hore halka uu wiiga naga saaray waa kana halkana uu naga saaran yahay way xirneed intana way xirneed buundana ma jirin labadan buundana gadaal laga dhisay marka waagi daraawiishta halka irida laga soo gali jiray ilaa Talyaaniga ilaa Ingiriiski inta isku bedbedelaan halka irida ka soo gali jiray magaalada beledweyne marka qofkaan halkan ka soo galin magaalada ma soo galin marka halkaas waa tara irid aamin taariikhda leedahay magaalada waa waagi siidkii oo sameeyay halkaan laga soo gali jiray dhinacan haddaynu u yara dhaqaaqno ma la odhan karayaa markaa Cumarow dhinacan magaalada ma jirin de waqtiga ma jirin magaaladu xaggan u jirtay halkaan ku akada marka magaalada halkan ma naga jirin hadda markaan joogno halkan webiga waa leexday kii kale xagga uu leexday waa kala beereen labada webi
kii xagga soo maray halkaasuu ka imaanaya kan hadda waa leexaya asigana marka halkan waxay ahaan jirtay baadiye ba iska aad waagaas dhinacaas halkan inta laga soo gali jiray marka intii dambe magaaladu markay dhinacan u dhaaftay dee muhiimad ma lahayn Soomaha albaabka marka waa la dhaafay hadda waxa waaye ilaa hadda janta gudisha la sii marayaba yaa 7 kilomitir la maray hadda magaaladii laakiin waagaas halkan ay ku ekayd magaalada halkan ay marka laga soo gali jiray wixii ganacsi magaaladu marka ilaa halkii argada ilaa halkan waa bartamaha magaalada halkaas lama galayna ciidankay degnaa jireen saad arkaysid oo ku hore ku geey halkaas siidka aada dareemtaan Talyaaniga Ingiriiska cid kasta soo gashay halkaas ku xiroo jirtay imika waqtigan xaadirka magaalada bartikeedu waxa weeye inta aynu soo marray miya argada ilaa halkan oo kale halkan waa generalki magaalada waa kabacdi laba xaafadood hadda xaafada Kooshin iyo xaafada Xawtaaka waaye marka waagii hore halkan waxa la jiray irid aamin magaalada halkan ay ku ekaa jirtay laakiin hadda way fiday magaalada Israa'iil iridaaminna waa halkan weeye waxay ka mid tahay sidaan horeba u sheegay Cumar Reemka oo inoo sheegayay goobaha ugu caansan ee taariikhiga ee ku yaala magaalada Beledweyne geedka imika halkan idinka muuqda waxa weeye geedkii heesta Beledweyne uu ku sheegayay abwaanka Hadraawi geed baaxad weyn loo dharar iyo ballaad loo Beledweyne ku caano la yiraahdo baaro bilic dheer hirkiisii ma bidhaansanayno bulxankiisa yeedhiyo ma maqlaynin baaqi geedkan gobolka Hiiraan buu aad caan ugu yahay xildhibaan Khaliif Muumin Tooxow oo gobolka ka soo jeeda kana tirsan baarlamaanka Hirshabeelle ayaa iga warramaya geedkan iyo taariikhdiisa horta waxaan aad ugu faraxsanahay Hariri iyo Hiiraan iyo socdaalka Hariri iyo Hiiraan aad baan ugu faraxsanahay Hariri waxaan leeyahay horta soo dhawow haddaan kaaga warramo geedkan waa geed ku caana Beledweyne Soomaali inteeda kalena hadduu ka baxana uu ku yar yahay laakiin magaalada Beledweyne caan uu ku yahay saas uu ugu wareegsan yahay lamana beerin oo Allah beeray oo u dooray magaalada Beledweyne waa geedka heestada aragtay laga tiriyay waa geed ku caana waa geed aad iyo aad u qiimo badan har iyo habeen uu shaqar baaba shaqar noocee buu bixiyaa marka shaqar wuxuu bixiyaa aad moodid in roob da'ay camal oo kale shabo in roob da'ay camal ayuu bixiyaa special habeenkii wuxuu bixiyaa shaqarkaas qof kasta oo area uu ku yaalo ku nool uu maqlayaa shaqarkiisa geedkaas Ilaahay baa ku manaystay magaaladan marka ma intan webiga hareerihiisu buu ka baxaa inta magaalada madaxda Beledweyne waa ku hareereysan yahay oo magaalada webigu intuu maro dhan hareeraheedu uu ka baxaa dhulka kalena Soomaaliyana geedkan kama jiro geedkan ma ahan muuqaalka iyo dhirirka oo kaliya miro uu leeyahay mirahaas waa miro aad iyo aad qof kasta oo dhadhamiya oo aad uga helo oo xilliga abaaraha ama qofka meeshii sida hilibka geelo kale ayuu manfacaad u leeyahay geedkaas mirihiisu marka geedkaas waa geedka caankaas ah magaaladana aad baa looga jecel yahay manfacaadkiisa waxa kamid ah miro uu leeyahay mirihiisu waa miro aad u wanaagsan oo waxtar badan oo waa la jeebtaa qofka bir haystaana waa jeebtaa qofkaan bir haysanuna intuu qoysto garaacda asuu afki ilkiisa ku cunaa mirihiisu sidee buu dhadhamaa marka aad buu u macaan badan yahay macaan badan buu leeyahay special qofka hal xabba ka cunaa waxay la mid tahay asoo hilib geel cunay oo kale hal xabbo qofka mirihiisa asoo hilib geel cunoo kale ayuu la mid yahay haddii aan halka ka tago wadamada qaarkood aan tago oo iraado Beledweyne aan ka imid dadka reer Beledweyne waxay leeyihiin qoona ma wadaa kaasun baa lay weydiin hadiyad kale ma lay weydiinayo kaasun baa lay weydiin qoonadu waa miraha weey marka geedkan waa geedkaas aniga haysanaya hadii lay weydiiyo anigana waan ku soo badinaynaa oo ku soo ilaa 10 xabban ku siinayna aad baad mahadsantahay xildhibaan waxa la ii sheegay in waayadii hore inkastoo magaaladu de webigu maro in galeyda oo kale iyo waxyaabaha saas mooyaane dadku midhahan kale aanay beeran jirin taasi ma jirtaa wallaahi arintaa waxba ka jira waxaanu ka faa'iidnay hadaanu nahay dadka reer Hiiraan special Beledweyne burburkii horta wax badan aanu ka faa'iidnay anagu ayadoo webigaas oo maro dhinac walba naga maro hadana aad umaanu beeri jirin dhulka maantay Soomaaliya inta badan waxa laga cuno oo geed murood ka soo baxa inta badan Hiiraan ay ka baxaan
oo laga soo saaraa hadday tahay liinta nagu hareeraysan hadday tahay cambaha nagu hareeraysan hadday tahay babayga geedaha indhahagu ay wada hayaan oo dhan hadda beertaanu waa beerta ku taalla xerada lama galay oo ciidanka ayaa hadda sameeyay militariga hadda sameeyay beertan ayaga sidaan u diyaariyay magaalada oo dhan khudradda waxa loo diraa gobolada kale oo dhan oo Soomaaliya loo diraa qudradaas nuuc kasta ay leedahay nuuc kasta oo dhan oo geed oo dhulkaba ka baxa ayaa hadda hiiraan ka soo hatta basasha noo baxda wax kale iska daayo baradhadii aan dad kale aan ku arkay xildhibaan magaalada beledweyne waxay sheegeen in ducadii heestii beledweyne ku jirtay hadraawi inuu ilaahay idin qaaday oo beledweyne Allah hayo ka dhig beerta raaxada ilaahay ducadaas meelnaba nooga baba leexaba siday aheedayba noogu dhacdaba waa sida kali waa midda kaliya hadraawi looga jecel yahay beledkan waa midda hadraawi hiiraan looga jecel yahay marow soo maray meeshaan ilaa 30 kilomitir ummaddu u safneedo lagu soo dhaweynayay ilaa 30 kilomitir taas maxay keentay ducadiisii oo Allah noo aqbalay asagoo wax wanaagsan noogu qofka abwaanka ahi ilaahay xigmad waxa ka hadal siinaya ilaahay baa ka hadal siinaya xildhibaan heesta beledweyne waxa ku jirtay gabadh beerloola la yiraahdo oo ahayd badde gabadhii heesta lafteeda abwaanka ka keentay gabadhaas horta ma jirtay arrinta waa la isku qabtaa gabadhaas waa jirtaa harariyo gabadhaas waa jirtaa walow aan u maleynaya hadda beledkan inaysan joogin waxaan u maleynayaa wadamadan Yurub Talyaaniga meelahaas inay ku dambeysaan u maleynayaa laakiin dee dhowr gabdhood baa lagu sheegaa baa la yidhi harariyo wax wanaagsan marka la sheego horta waa la isku qabsadaa sideedaba waa la isku qabsadaa tilmaanta marka hadraawi oo suuradeynayay gabadhaas siday u eg tahay gabar kasta oo noocaas isu qiyaastay waxay tiraahdaa aniga ahayd laakiin anagu qof ahaan waan u naqaanaa isagu marar la weydiiyay abwaanka laftiisu muu sheegin oo wuxuu yiri gabadhaasi waa marwo oo sheekadeedu way dhamaatay gabadhaasi isla waqtiga hadraawi oo heestaa tiri isla waqtigaas la guursaday mabay sii raagin waqtigaas la guursaday isla markaana ma jecla in magacyadeeda la sheego ma jeclo qoyskooda wiil baan ku ogaay magaaladan I don't know hadda inuu joogay in kala ma aqaan laakiin wiil baan ku ogaay magaalada dadku waxay isku qabtaan inkastoo abwaanku dee uu ka sheekeeyo si fiican uu ka sheekeeyay mararka qaarkood waa khiyaal bay yiraahdaan marka waxaad leedahay khiyaal ma ahayna gabar jirta oo naqaano oo dhaba weeyaan waatay abwaanku saa uu sheegay ma qurux badnayd gabadha tabta uu sheegay gabadhu waqti waatay timo boqonka joogtay lahayd suuradaha oo tilmaamo dhabay lahayd gabadhu aad iyo aad baad mahadsantahay xildhibaan aad iyo aad u mudan